السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ardayda kala duwan ku soo dhawaada darsigeena shanaad waxaynu ku baranayno Adobe Photoshop. Darsiga shanaad waxaynu ku baranaynaa toolka lagu magacaabo Rectangle Marquee Tool. Rectangle Marquee Tool waa tool sameeya selection minus plus dhammaan selectionada aad u baahan tahay oo dhan ku sameyn kara. Marka waxaan rabnaa computerka halkan ka muuqda laptop kan inaynu ka bedelo shaashadan cadaanka inaynu meesha maarta buluuga inaynu meesha ka saarno oo aynu midab kale u guurno ama aynu ka saarno meesha shaashadan dhamaanteed buluugan iyo calaamadaha start window waxaan meesha ka muuqdo inaan ka saarno rabnaa meesha si aan uga saarno inuu computerka selection inuu yahay waxa qasab inuu ku marka hore inaan sameeyno masking wax la yiraahdo layer masking halkan icon-kan ayaa tagaysa marka u baahan tahay marka dushiisa soo tagtid ayaad waxa leedahay click waxa lagu soo daray calaamadaas cadaanka ah lagu soo daray maadaama aan masking sameeysan waxaan tagaynaa toolkan ayaan tagaynaa toolkan gudihiisa waxa ku jira afarta tool bil cagsi ay isku yihiin oo midba midka kale waa uu ka soo horjeedaa ama asaga ayuu wax ka bedeli karaa ama uu ku dari karaa ama uu ka dhimi karaa midba midka kale ayuu ka daba shaqeyn karaa marka aan gudihiisa furno markaan saa click uqono furno waxa ku jira rectangle marquee tool and elliptical marquee tool signal row marquee tool iyo signal column marquee tool haye shortcut good waa m haddii aad computerka m taabato directory ayuu ku geynayaa. Okay, marka waxaan dooranaynaa oo aan ku bilaabaynaa qaybta koowaad rectangle marquee tool ayaan click siinaynaa sida u jeedid cursor-keenu wuxuu leeyahay calaamad isku talaab oo plus ah haye shaashada ayaan waxa ka qabanaynaa geeskaas ilaa geeska kale ayaan jiidaynaa oo hoos ah ilaa geeska kale oo hoos markaan saa u jiidno waa sii deynaynaa click-teena ayaan sii deynaynaa haye oo fiirso marka hadda waxaan joognaa minus waxaynu dhimi karnaa selection kan aan sameeynay meeshan ku sameeynay ayaan waxaynu ka saari karnaa qaybtan u baahanaa su'aal waxaan rabnaa inaan ka saarno qaybtan hooso textbareka cad iyo qaybtan ayaan u baahanaa inaan ka saarno si aan uga saarno marka waa inaan geeskan kaga qabanaa ogow laakiin waa inay ku dooran tahay minus halkan afartan ay kana u jeedid ayaa minus iyo plus isku ah labadaas isku xigta ayaa minus iyo plus isku ah labadan kalena qaabkay u shaqeeyaan iyagana waa baran doonaa laakiin labadan qaabkay u kala shaqeeyaan oo minus iyo plus isku ah ayaynu baranayna marka minus aan joognaa waxaan leenahay geeska inta kaga qabano calaamadda windows start ayaan marka hore jaraynaa qaybteedan jaraynaa warniyo intaas ma rabay iida baan leeyahay intaas waan rabay iida hay selection-kiga dhamaantii waa la raray waxa lagu feed gareeyay cabirka halkan oo ma garanaysaa Windows Start-ga computerka haye qaybtan kale ayaan marka u gudbayaa si aan textbareka u reebto ilaa hoosan jiidaya waan sii deynay markaan ka marinay sida u jeedid textbareka hoose cadaanka ahaana waa la ii reebay waxaa la ii highlight gareeyay oo hadda selection-ku ii saaran yahay waa inta buluuga ah oo sawirkaas maartay Windows-ka halka markaan joogo haday waxaan samaystay masking ayaan halkan ku samaystay masking kan aan samaystay marka wuxuu hadda ay anfacaya inaan shaqo ku qabto waxaan tagayaa brush tool ayaan tagayaa brush tool marka aad wax ku tirtirayso waa in qaybtan black ay ku samaystaa ku sareysa haddii qaybtan ay hooseyso black ma uu tirtirayo marka labadan color oo blue madowga iyo cadaanka ana sidee ay ku samaysmay waxa ay ku samaysteen markan anigu masking doortay ay automatical samaysteen haye aan marka halka sida u jeedid wuxuu noqday cursor-kayga calaamad oo ah aan halkan marka mariyo calaamadaas oo halkan aan left click haya ma sii deynayo anoo haya ayaan soo marinayaa sida u jeedid blue-ga dhan waa laga cunay waxa la ii reebay shaashadii intii kale oo cadaan weyda ayaa la ii reebay haye waxaan u baahnay marka qaybtii kale inaan ku daro qaybtan kale inaan iyadan raaciyo raba on textbareka hoose bis laaro waxaan tagayaa rectangle marquee tool ayaan click siinayaa kadibna plus ayaan leeyahay sida u jeedid falaarteedu plus way
بلاس ما دام يتاي بلاس كاسن قاضية إلا يوحنا كو آدينية أنت أو مارت علامة ويندوز كتالو أيام كو آدينية هي كليك أيام لما سيدينية سelection كي مرة بعد السؤالي إيش هذا يعني كان جرى السؤالي كان أو يدورن أيام واحد تجيه إن بروش تول أيام تجيه بروش تول سوق هذا مش عاملينه هي دي نوتر تريه هي هذا وافق أنت عملينه إنه ماينس بلاس selection كان أكو سمين كرتي وحول بعض بعضنا selection كان أكو سمين سنة وأتكو سمين كرتا هي تاسوام أنك قاعد selection كان مركان selection كان يا عيك قاعد وريجي control D وانتابنيه أوكي هل كان مركو حرابة إن shape كو أبوره أن rectangle merkwell to left جس shape أنكو أبوري أيان ربع هل كان أنكو أبوره وعندك يا rectangle merkwell tool أنصو دورانيا بلاس كيس دورانيا كيس كان قوانيا إلا حاجة جديدة هذا أنت صورنا أي selection ساري سوي جديد أنت صورنا selection ساري selection مركز ساري هل كان تجيا وعند دورانيا icon كان icon حلقوا مقا لقوا عابا create new file or adjustment layer أبلغوا مقا عابا أوكي كليك أنسينيا كده واحد دورانيا solid color كواحد صوت دورانيا مدو أنك صوت دورانيا مدو بانك صوت دورانيا مدو هاي كليك أنسينا واي مركزان دعوة وهالكم حوجد ده إن ما قرنسا شيب كأن سمين ومقينه هالكم فيرسا هالكم أي كاغا دعوة ميشان وحكوه سيا كمبيوتر كا أيوكوه سيا كورس ومري مركا sida ujeedid marka waxaan sameeysanay kan markaynu sameeysanay oo shape-ka aynu sameeysanay shape-ka xogaa ayaan wax ka dhimaynaa opacity-ga xogaa ka dhimaynaa si looga dhaxarko computer-ka meesha ka muuqda haye saan oo kale marka lagu sameeyay isaan u dhameystiro darti sidaas ay wax ugu sameysatay shape qurux badan oo computer-ka ma garanaysaa darti kor xogaa u qaadi kara meelaha waa ka dhigi kartaa واحد بملا intaan qayb u shaqeeyaa oo jeeda halkan waxaan ku sameeyay selection waxaan shaashadan jarnay halkan hadana shape baan ku abuurnay intaan oo shaqo ayaan ku qaban karnaa bal qaabadaad kale oo u shaqeeyana insha Allah waxaan ku baran doonaa 10 dambe ilaa 4 unit ilaa meelahaas uu yeelanaya ana huba inuu yeelanayo sababta qaybihiisa kala duwan inaynu barnaa muhiim ah marka darsigii koowaad oo 10kii shanaad وحكو كوبينها انتن ان شاء الله waxaan rajeynayaa in qaybaha kale aan sii barano oo yirdidiisana aan ka sii shaqeyno insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.